money. We are looking for money. Lacag loo wada baahayaa. Qof waliba oo bini aadan oo adduunka ku nool wuxuu raadinayaa lacag. Siyaabo kala duwan lacagtu u raadinaa. Oo ay kamid tahay xishoodkiina dhinac dhigno. As long as we are getting money, we're gonna do these things. As you guys already know. But before barnaamijkan maanta waxaan ugu talagalay title-ka ka aragteen social media inta application ama website oo lacagta ugu fiican laga sameeyo hadda maalmihii dambe hadii aad la socoteen Soomaalideena waxa lagu wadayaa YouTube lacag laga sameeyaa YouTube kaliya lacag laga sameeyo YouTube na waa laga lacag badan yahay barnaamijka maanta wuxuu ku saabsan yahay meesha ugu badan lacagta laga sameeyo at the moment la joogo waana simple laakiin inta aan u gudagelin barnaamij waxaan jeclaan lahaa in aan sharafsiyo hal shakhsi ugu qaaliya from day one maalinkan channelkan furay up to now every video oo aan sameeyo commentida waa akhriya every video oo aan sameeyo commentiga ku soo qoran always comment waxa waaye isiinay dhiirigelin let's say hadda xiligan aan hor fadhiyo training aan ka imaado xogaa ka hor marka aan furay marka culays ba iga fuulay YouTube-ki to be honest xaqiiqada marka aan sheego culays ba iga fuul culayskaas oo ah shaqooyin kala duwan ay yaalo adikii inaan waqti inay si yaraba at the same time culays yar oo ah hadhow sameynaysa taasna waa mid ugu xun marka ay timaado wax sameyntu hadhow sameynay marka ay timaado you wiliga ma sameynaysa so message by soo dhacay from Instagram magaciisa imo oo soo sheegin laakiin naanestiisa oo aan ku bartay commentiyadiisa ayuu igu soo qoray marka qoraalkan uu soo qoray brother assalamu alaikum my nickname is James what's up I wish you a pleasant Ramadan that will inspire you with courage and strength that will help you to win every challenge of life. May Allah bless you and your family. Happy Ramadan Kareem, brother. There is so much going on in life, but you do not have to worry because I will support you, sahib. Hore usoco. Go man. You see, it's easy to read, but it means a lot to be honest. Ani ahaanteedu wax weyn bay ii tahay. Marka James, my brother, thank you so much. Wallahi alazim adiga iyo dad badan oo aygana sidaan oo kala qoraal igu soo qoro hadaysan ahayn YouTube day audio marka raba iska soo galay lahay marka raba iska sameeyay laakiin dadkii igu haayo ayaa kamid marka idin leeyahay aniga waxba idin ka faa'iidaa oo lama jeedo in aad lacag ii soo dirtaan ama aad awaal ii sameysaan ee waxaan ula jeedaa just you see hadaladan qurxoon kaliya ayaan waxay ii tahay aniga it means a lot to me to be honest waana dhiirigelin oo ah waxaan hore ugu sii soconayo adduunka lacag waxba ma sheegto ee waxa wax sheego hadalka wanaagsan iyo dhiirigelinta qofka walaalka ama walaasha aad ka helaysid so James iyo asxaabta kale to aan James waxaan ku leeyahay my brother thank you so much wallahi alazim I ain't got nothing but respect madaxa ay saaranta my brother Instagram kiisana waa kana lagu yaaco so aan u gudagalno barnaamijkeeni oo ahay meesha ugu badan oo lacagaha laga sameeyo anyway hadii aad channelkii ku cusubtahay horto soo dhawow oo don't forget that's my Instagram. Don't forget to subscribe my beautiful people. So social media now alade ugu lacag badan oo lacag laga sameeyaa. Hadii aad la socotay maalmihii ugu dambeysay Soomaalideena waxa lagu wadayaa YouTube. Loo haysta YouTube in lacag badan laga sameeyo. Dad baa shaqooyinkooda iska joojiyay oo just full time YouTubers noqday. Ani ahaan kulama tali lahayn xaqiiqada markay timaado in qof uu shaqadiisa oo ka tago. Laakiin waa maqlay waana arkay dad badan. Waxaa jira aalado badan TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter YouTube ayaa laga tagin waa kan hadda aan ku jirno intaas kee lacag badan laga sameeyaa to be honest baaritaan yara sameeyay baaritaankaas oo aan sameeyay xilliga lagu jiro lacagta ugu badan meesha laga sameeyaa ma ahan YouTube mana ahan Instagram mana ahan TikTok or Snapchat waxa laga sameeyaa right now lacagta ugu badan Facebook sidee ay ugu lacag badan yahay markii aan la barbar dhigno aaladaha kale iyo especially YouTube wuxuu ugu lacag badan yahay markii ugu horeyso shuruudaha ayaa muhiim ah shuruudaha la isaga baahan yahay markii aan la barbar dhigo YouTube ko kale oo aan aaminsanahay inuu lacag badan laga sameeyo YouTube ka shuruudihiisa ayaa aad u adag mar walba markay timaado xagga copyright-ka markay timaado video-ga in uu kala kaco ama uu dad badan ay daawadaan because xayisiinta waxa laga sameeyaa always waxay tahay daawasho badan marka Facebook page furanaysa page-ka marka furatay shuruuda lagaaga baahan waxa waa 10,000 oo followers in ay soo raacdo iyo video-ga ayaa dhaqso badan degdegsa badan markii loo barbar dhigo dhanka YouTube ko tusaale hal video hadii aad isla soo gelisid YouTube iyo Facebook oo YouTube laga daawado 10,000 maxaa u malaynaysaa in laga daawanayo Facebook obviously waxa laga daawanaya 50,000 60,000 ama ilaa 100,000 oo kale taas oo ah uu fudud yahay si uu dadka kale u gaaro taasana keenayso in uu kala lacag badan yahay markii loo barbar dhigo YouTube so I think waxa u malaynaa guriga inaan galno oo aan video halkaas ku sii dhameystirno so let's go
So anyway, my beautiful people, I hope inuu video idin qanciyay oo aad wax ka wada faa'iido doontaan. Haddii aad wax fikir haysaane hoos igu soo qoro si aan next video aan isugu dayn inaan u sameeyno. Yeah, that was the night, and I'm happy at least inaan isku soo noqonay soo hor fariisanay. That just gives me encouragement. So anyway, beautiful people, thank you for watching and see you the next episode. You guys are the best beautiful people. See you.